بسم الله والدو fidna kale oo da'yarteena soo gashay waxaa ka mid ah khaasatan gabdhaha feministka inta badan ku badan waxa weeyaan in ay soo akhriyaan buugaagta ay qoraan nimankan orientaliska ama mustashriqiinta ee acdaadda islaamka ah ama ay soo daawadaan muuqaaladooda ama ay ka qayb galaan panel discussiono lagaga hadlayo rasuulka sala allahu calay wasalam iyo siirada dadka ka hadlaya iyo dadka soo diyaariyana waa cadow islaama waxaa inta badan marka ay kula imanayaan guurkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee hooyadeen caaisha bintu abibakar iyo hooyadeena kale zaynab bintu jaxsh labada hooyo ee mu'miniinta caaisha iyo zaynab ayay aad u ataagaan dadkan cadowga islaamka sababta waxa weeyaan caaishana da'du rasuulku sala allahu calayhi wasalam ku guursaday zaynab bintu jaxshina inay ahayd xaaskii zayd bintu xaarith rasuulka sala allahu calayhi wasalam intuuna guursan ka hor waxay ku oranayaan marka oh my god I heard Aisha was so young I mean what should we say to them maxaan ku dhahnaa dadkan gaalada how can we defend the prophet sallallahu alayhi wasallam waa gabdho iska daacada waxay rabaan rasuulkooda inay difaacaan laakiin kalsoonidiina ma haystaan aqoontiina male haddana waxay ku leeyihin Zaynab bint Jahsh I mean she was the wife of his adopted son waxay xaas u ahayd wiilku soo kori I mean how can the prophet sallallahu alayhi wasallam marry that what should we say way ku iman markay saa kula yimaadaan waxaan rabaa laba meelood jawaabta inaan ka siino kow diirad cultureka dhaqanka waxaanu leenahay it's unfair cadaalad maaha 1400 oo sano ka hor dhaqan jiray oo bulshadii markaa joogtay curfigeedii caadadeedii okay ahayd oo aanay wax dhiba ku jirin oo Abu Jahl iyo nimankii rasuulka sallallahu alayhi wasallam cadowgooda ahaa aanay weligood ka hadalin ana it was okay culturekii markaa jiro ahaa inaad maanta qaadato miisaan feminist ah oo cadowga islaamku ay isticmaalaan oo 1400 oo sano ka hor back project ku samayso dib ugu eegto it's not fair sociology marka la baranayana ma aha shay cadaalada taasi waa saas dhinaca kale miisaan islaama marka lagu eegayo qofka muslimka waxaan rabaa inaan ku dhaho do you believe Muhammad sallallahu alayhi wasallam was a messenger of God ma aaminsan tahay adiga muslimka nabi Muhammad inuu ahaa nabi ilaahay soo diray oo wuxuu ku hadlo iyo wuxuu sameeyay ilaahay yiri wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ilaahay wa subhanahu wa ta'ala fawqa sab'a samawat ka hagayay haddaad aaminsan tahay markuu nabi ilaahay ahaa oo ilaahay hagayay who are you to talk about his wives ya adiga xaq ku siinaad qoyskiisa ka hadasho caqli waxaad noola imanaysaa 21st century markaasaad rabtaa inaad ku eegto 1400 sano ka hor dhaqan jiray haddii aadan aaminsanayn inuu nabi ilaahay ahaana you have a bigger problem markaas waxaan ka wada hadalnaa meesha ma yaalo waxaan u baahanahay marka labada miisaan in la qaato midna uu yahay cultural perspective oo ah xilli walba miisaan wax lagu dharariyo laha dhaqan ahaan diin ahaan markay noqotana nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa hagayay oo talaabo walba uu qaadayay hagayay alla subhanahu wa ta'ala adigu haddaad aaminsan tahay marka inuu nabi ilaahay soo diray ahaa xaq uma lihid inaad ka shakiso ama ka hadasho xaasaskiisa iyo qaabka uu guursaday iyo da'dooda hawlku u taala maaha inaad samcan wa taacan tara rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu la yimaado haddii aadan aaminsanayn dib weyn baa ku hayso waxaad u baahan tahay tawxiidka in dib lagugu dhigo marka kalsoonida iyo aqoontaasaa loo baahan yahay da'yarteenu inay ku qaabilaan fitankan soo noqonaya ee ay wadaan nimankan orientaliska ee bugaagta qoray mustashriqiinta ee hadda u soo jihaystay in da'yarta iyo rasuulkooda sallallahu alayhi wasallam kala fogeen allah da'deena xafido fadlan muuqaaladan follow iyo like dhaha jazakumullahu khayr assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh